السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يرسول هذا ميلولي بود كجوكتان دوني دافي هذا حاني لاي هاي كلن حيسلا اسكسو نقد وناكسن وولاشين سميرة مع تشلاي أما سميرة ساج أما سميرة سيرشي سلا تقاني وحالي لاي إذرهان كيمبا إذن أهانتين بالسور هذا ولا لاي قالقا جمع وناكسن جمع مبارك لمانتين سؤال هذا من الولد كجوكتان الدنيا دافية ما أنت وحربا موضوع حساسي إن كحد لا يا أبا هنا مفهمتين موضوع حساسي ما أنت موضوع حساسي إن كحد لا أبا هنا هاي سؤال هذا مركا لمانتين ولا لا يقالي كحرن برتي يوتيوب كي سيدا بيجو حرنتين وتكون حسنتين سيدا إيصا بود جريسان وكم حسنتين ومقالة وشير جريسان وجرسيسان ولا لها كله انت سبسكرايب كي صارتي الى joogta maxasinidiin waligiin ila jooga inta soo socota subscribe kii saari doontaan waxa la welcome soo dhawaada gacmo furan muuqaalkan sida ugu sii share garaysan ugu la garaysan ugu commenteeysan ugu mahadsantihiin fikradihiina iyo dhiirigelintiina quruxda badanna waa idin kaga mahadcelinayaa. Thank you so much aad leeyahay. maanta mowduuc muhiim ah rabaa inaan ka hadlo sida ciwaanka ama title-ka ka aragtid sida ciwaanka baad ka aragtid galmada sharci darrada ayaa rabaa maanta inaan ka hadlo oo dhibaato fara badan ku hayso gabdho fara badan dhibaato ku hayso oo mowduuc muhiim ah oo asaasi u ah dumarka Soomaaliyeed gaar ahaan dumarka oo dirisa oo xaaladahaas oo kale ay qabsadaan galmo sharci darro ah oo xoog ama qasab ah lagu la kaco aysan raalli ka ahayn waxaan u baahan yahay wax cadaalad ah Soomaaliya wax cadaaladna ma haystaan sababtoo ah wax waa mamnuuc qofka in loo geysto wuxuu raalli ka ahayn oo lagu qasbo waana wax sharci darro ah taasna looma baahna inay ku dhacdo gabdhaheena ma fahanteen loomana baahna soo gabdhaheena waxa loo baahan yahay number 1 wax walba in ayaga siino iyaga waa horumarkeena horumarka ragga waa dumarka soo dumarkuna waxa loo baahan yahay in la ixtiraamo oo darajada iyo qiimahooda la siiyo okay so ma haystaan dhibaatooyin fara badan ayaa iska haysta xaalado fara badan ay wajahayaan soo gabar ku nool oo Soomaaliya ku nool gabar Soomaaliya ku nool Soomaaliya ayaa waxay iga sheekaysay xaalad nafsiyeed oo ayada haysata soo ayada waxa loo geystay galmo sharci darro ah galmada sharci darrada way fara badan waxyaabo fara badan ay soo galay kufsiga oo kala qayb ay ka yihiin sababtoo qofka markii la kufsanayo asii raali kama ahan waa galmo sharci darro ah Soomaaliya sharci darro ay ka tahay xaggayga sababtoo wax qasab ah qofkaas dambigiis geystana wuxuu mudan yahay ciqaabtiisa uu maro laakiin ma maro oo wax cadaalad ma helaan dumarka inta badan marka gabar waxay tiri aniga waxaan ku noolahay Soomaaliya tiri magaceeda ma sheegay xaafadda degan tahay dhibaato inta haysata ayaa maanta ugu filan ee ku haysato xaafadda ee ku nooshay iyo deegaanka dadka ay ku dhex nooshaa waxa ay dhahaan soo gabadhaas waa gabar da'yar age-keeda ama da'deedu waa 16 sano ay jirtaa sida ay sheegtay waana gabar da'yar waxay tiri dadka xaafadda ama deegaanka lama sheekaysan karo xisho dartiis marka magaalka u soo baxa mowduuc u soo baxan shir ay soo xirtaa hoos dhulka aniga oo fiirinaya oo dadka indha u dhameystiri kan xitaa dumar kor uma eegi kara tiro asaagayga ee lama sheekaysto aniga dhan waxa ugu dhacay tiri waxa la dhahayo depression waxa iska keenayo murug qof iska murugsan oo niyad jabsan depression ugu dhacay tiri qof niyad ka jabsan ahay alaaba mar walba qof niyad ka jabsan ahay tir dhalinyarta lama sheekaysan karo xitaa family-ga qaarkood wajiga ma siin karo qolaan sida xiranahay iskuulka aan dhiga jiray ma aadi karo meel walba fadeexada ay martay dhahday waxaana loo geystay galmo ay raalli ka ahayn oo sharci darro ah macnaha kufsi la iska dhigi karnaa Soomaa kufsi waa galmo sharci darro ah qofka soo raalli keenaya lagu leeyahay Soomaa waana qasab wax qasab ah waa sharci darrada ay qayb ka yihiin galmada sharci darrada ay soo galaysaa soo gabadhaanay to markii waxay tiri wiil ba xiran naga dhaxeeyay shukaansi jiray wiilkiiba waxay tiri wuu iimaan jiray adiga waa iska taqaanaa gabar haddii ay tahay qofku haddana uu da'yar yahay waxaa la 20 jir intuu geed ka boodo tala ka boodaa waan iska da'yar tahay gabadha galmada sharci darrada ama kufsiga si loo geysan doono oo gabi ahaanba nolosheeda murug ama qol muqdiyo ku soo koobmi doonto sida hadda ay ku sugan tahay xaaladeeda gabadhaas una soo duceeyay walaalahayga marka dhibaatooyin fara badan ayaa naga haystaan dhankaas
dumarkana anaga haddaan ahnay dumarka aad uma ixtiraamno soomaalida dhexdeena marka runta laga hadla waaye dumarka aad looma ixtiraamo soo maahin dumarka aad looma ixtiraamo anaga soomaali haddaan ahnay dumarka aad looma ixtiraamo sugadi marka raali noqda marka dumarka aad looma ixtiraamo soomaalida dhexdeena gabadhi waxay dhahday wariga aan ku daalinay ninkay shukaansanaysa xiriirka dhexeeya bilmiye maalmaha kamid ah weliba galabgaab ayay ahayd si ay sheegtay wiilkuna isku deegaankii ahaayeen baqadin iyo cabsi saasa kama qaban qofka markaa taqaan abtiriskiisa iyo ehelkiisa baqadin saasa kama qabayso soo ma ahan markuu wuxuu yiri ii maanta gurigeena ugu maadida rabaa gurigana qof joogta ma lahan cidlo waay ani kaliya soo ani kalsooni aan ku kalsoonaa ama qofkaas wax kugu sameeya misliina tiro u tagay meeshii aan fadhiisana dhahday cabitaan oo ii keen cabitaankii cabay marka cabitaankii cabay ani ogaal waa leeyahay tiri waa dawaqooyaa laakiin kabacdi waxa guriga igu soo gashay tira 4 raga subhanallah 4 rag ayaa imaaday dhahday guriga soo gashay isla markiiba markaan dawaqa oo daqiiqada fadhina cabitaankii aan cabo inuu isaaqooya arkooyo asoo xidhay maxaa kugu dhac maxaa kaasi asigoo tijaabo iga sii qaaday markaas waxaan ku ma aqaan walaa xogaa waxaan dareemoyaa ina aniga dhan isbedel igu imaada dareemoyaa ma aqaan maxaa kugu dhac maqan dhanta oo dhahay maqan dhalin laakiin xogaa isbedel aan dareemoyaa aan dhahay tiri soo abaar ka bacdi waxay dhahday waxa dhacday in aniga awood iyo tabar aan dad isiga celiyo waan garan waayay 4 nin ay maatay dhahday asigu ku dar 5 ayaa ay kufsadeen halkaasna waxay u geysteen galmo aniga raali ka ahayn ay tiri waxa ay raali ka ahayd ma ahan iyadoo ninka waxa uu madina sheekaystaan xiriir ka dhaxeeyay ka bacdi kala tagaan ugu maysan imaan in loo galmoodo Soma in la kufsado ugu maysan imaan waa sharci daro waa dulmi waa la dulmiyay gabadhaas godobna waa laga galay mustaqbalkeedna waa lagu ciyaaray niyadna waa laga jabshay Soma muraalka meelaad mar haday dhulku dhacday ay jabto ma la isku toosi karo waa la iska daadina qofka qalbigiisa mar hadduu saas noqdaan halis ayuu ku jiraa Somaahin gabadhii sidii ayaa loo kufsaday 4 nin oo ninkii balansaday ilaa asiga ku dar 5 ayaa kufsaday gabadhii ana waxay tiri indhaha koodii wax waan ka kala arkay nimanka wajigooda indhahooda waa ka buuxsay indhahooda waa arkay laakiin tabar iyo awood ma haynin tiri aan ku qeeliyo xitaa ma haynin laakiin awoodii tabarta ay tagtay kabacdi way kufsadeen kabacdi anigoo cabitaankii inay wax igu darana u maleeyaa waa dawaqmay tiri markay kufsanayeen neeftu igu dhajiyeen tiri maraa isku day inaan qeyliyo aan sii dawaqaayay nimanka wajigooda kood waa kala gargaranayay tiri afka sankii afka ayaa gacmo nab liiga si neefta ayaa liigu celshay aniga dhan waxa isku heystay qof dhinto oo kale ayaa isku heystay sas ayay galeen tiri nimanka kadibna wixii dhaca kuma warheen tiri neefta hadii mar qofka sankii afka laga qabtay wuu suuxaaya waa sankii afka bini'aadanku way ka neefsadaan labadaba hadii sanka laga qabto afka inaan ka neefstaa suurtagal ah hadii afka laga qabto sanka inaan ka neefsto laakiin labadiba nab hadii la soo kaasiyo oo awood adiga ka dadka awood badan ay ku hayaan kuma qooninaayaan xanuun kale dheerin lagu diray raali ka ahayn qofku wuu dawaqayaa wuuna ogaal beelaya wuu mir darsoomaya ogaalka ka tagay soo ani waxa isku heystay tiri abaayo ina dhinta isku heystay oo mirka iga tagay kabacdi waxa soo ogaal aan soo helay dhahday anigoo hospitalka jiifo ayaa isbitaal aan soo helay ogaalka dadkan markaa weydiiyay waxa lagu dhahday niman bajaaj ayaa adiga laga soo tuuray bajaajtaasna waxa arkay gabdho fara badan oo aroos ka imaaday ayaa arkay waxay dhaheen bajaaj ayagteen soo martay anagoo duudeena aroos ka imaanay xilli habeenina way ahayd 2 saac habeenimo ilaa 3 saac amal u dhixisay dhaheen gabdhaha marka bajaajti walaxay dhulka ku tuurtay wayna kala gadoontay horteena ayayna ahayd ayay dhaheen gabdhaha anagana soo socno bajaajta horteena way kala fireysay walaxay dhulka dhigtay way kala fireystay yacni meesha waxa kaaga cad gabadhii inay ragii bajaaj ku soo qaadeen iska tuureen markay dantooda ka soo gaareen meel wada ah ku soo dhigeen kabacdina ay iska tageen ilaahay u badbaashan sadadaan ka gooynin sababtoo wax ku reebta mana ninka kufsada oo future-ka mustaqbalkaaga burburiye gabadhii marka caqabadaas ku dhacday xanuunka badan ku dhacday walaasheen u soo duceeyay in qalbigeeda ilaahay u dejiyo rag ciqaabkaas u geysteen xanuunkaas aad ku daranne oo dulmiyay in ilaahay ayagana ka jacsiyo adduunyo aqraba sababtoo gabadhii waxay tiri marka saas ayaa u dhacday markiina naagihii ay arkeen gabdhihii oo arooska ka yimid mootadii meesha waa horteena aheed ay ka kala fireysay waxa dhigtay markaan ku soo dudnay gabaraaw meesha taalaba ayay dhaheen gabadhina adiga aheed Allah saaxiib
marka saasay wax u dhiceen tiri aan ogaal waxay ugu dambeysay markuu cabitaankiisii markay nimanka imaadeen markii sankii afka laga qabanayay markaa inta iska celi isku dayahay markaa qaylinayay markaas ogaal ugu dambeysay dhahday kabacdi isbitaalka dhakhtarkan hadduu baaritaan ku sameeyay wuxuu sheegay 5 nin inay kufsatay u galmootay gabadha masaakiinada ah oo yar oo 16 jirka ah oo iskuulada iska oo miskiinta babyda iska oo saqiirka iska ah sababtoo ah saqiir way tahay iyada 2 sano ka hor dambi looma qorin Soomaa qofku markuu 15 sano gaar kadib baa dambi loo qoro oo qaan gaar macni soo saqiir waa iska tasqiir wax ma badhaan baby waa 16 jir waa qof laanyar oo iska carja oo aad u jalacsan waxba iska awood saasan la waxba iska celi kareynin Soomaa dhibaatadaas ay ku dhacay gabadhaasayto oo aan iga sheekeeyay una soo duceeyay waa goor walaashiina oo Soomaali ku nool waxay tiri dhibaatada kale oo ay haysto waxay hortaas way ugu dhacday tiri raggiina waxay tiri waa la soo qabtay maxkamadda la geeyay maxkamad markii la geeyay waxay tiri waxaan rabay in xukun ay marsiyo wax xukun lama marsiinay tiri isla subax la xirxiray subaxeeda kale inta la gaaray magaalka dhex socdeen tiri ma fahanti wax cadaaladna ma helin dhahday dadka xaafadana waxay leeyihiin warku way maqleen nimankana deegaanka ayagana degan yihiin waa niman la yaqaano warkii dhan magaalku galay gabadhi dadku waxay leeyihiin gabadhi la kufsaday leeyahay kabar gabadhi dulmanada miskiinta ah dadkii shacabkana waxay ku leeyihiin gabadhi la kufsaday ayada dhibana ayada hadana magac xun la sii dhahaaya ay sigi wax geystay magaalku raaxaysanaya oo iska tamashleynaya naagtu rabashkaasana naagtu guursan karaa ninkii la kufsaday ninkii yani wax kufsada ma la dhahaayo aan dhahay ninkii la kufsadan ee keentay sababtoo ah ninkii dambiga geystay dambiilaha magaalku sharci inta xirto gabar kale been u sheegay barkamal hadana uu dabaayo dabinkaan oo kale inuu sameeyo suurtagal waayo uu ku fakada dambigan soo ma ahan markoo anyway way iska jiraan dhacdooyinkaas foosh xun way ku dhacaan dumarkeena qaar kamid ah gabadhaasna waxay tiri murugo xaalad murugo dirsil ah qolka kama soo baxo muqdiga kama soo baxo marka waxay tiri aniga dhibaatadaas ay haysato walaalay dhibaatadaas ay haysato aniga qof iska dhibaataysan ahay dadka xaafadana waxay u leeyihiin eragaas ay ugu dhahayaan mar walba anu waxa raali ka ahay ma ahay tiri waa wax aniga la ii geystay oo dulmi ah Soomaa waa qasab wax lagu qasbay iskama celi kar kama baxsan kar mar hadii xoog lagu haysto laga awood badan ay ku haysato kama baxsan karti kama nafika kartid ma aha marka waxaas waa wax sharci darra wax sharci waa ma dhahna anaga waa maya wax sharci ah ma jiro wax sharci la dhahayo ma bijiraan ba Soomaa marka wax sharci la ma aha waxaas dhibaatadaas aan ku dhacay gabadhaas walaasheeda ee Soomaaliyeed waana ku xumaha aan ahaanteeda adinkuna waxaan iga codsanaa in ay soo duceysiin ma fahanteen video cid walba muuqaalka dhameysto muhiimadda aan ka hadlayo way dareemi doontaa cid walba damqasho leh oo damiirkeeda shaqeynaayo naxariislan video way sii share gareyn doontaa insha Allah soo dhawaada marka dhibaatooyinkaas iska jiro xaaladaas adaga iska jiraan xaaladaas adaga ka jiraan wadanki gabar kalena waxay tiri waxaan ku noolahay aydan America anigoo gabar yar ah darbi jiifiska ah America darbi jiifku ay dhahday wax family ehel ma haysti dhibaatadaas ay geystay anigana ilaa haddana waxaan ku noolahay tiri America waana qof xaaska dhibaatadaas anoo yar ay u dhacday tiri oo malaha 12 jir camal ay u dhacday iyadana gabarina iska ahay darbi jiifan iska ahay ehel malihi family malihi homeless ahay soo dadka homeless ka wax walba way la dirsan xaalad walba way ku dhacaysaa Soomaa qofka markuu guri haysan gurigu waa gabaad sidoo kale family waa darbi waxyaabo fara badan ayuu ka difaacaya marka qataha qof family leh dadka dhan ku soo dhawaanayaan xitaa ninkii adiga ma qofka ku soo haweysan lahaay oo ku dulmi lahaay reerkaagu kaaga baqaya laakiin marka reer lahayn ama wax family haysan cid lagaaga baqaaya ma laha sidii la rabo ayaa laga yeelaya soo mid kalena way jirtaa gabar kale iyadana oo dhibaato noocaas loo geystay xaaladu way iska adag run ahaantii gabdhaheena Ilaahay u gargaaro dumarku way iska dulman yihiin gabadhaas ida wadan joogta xanaano leh American ku noolahay ugu tiri anigoo 12 jir ugu dhacday depressionka noocaas oo kale ayadana problemkaas hadda laakiin waa ka baxay tiri waliina American ku noolahay hadda waan iska shaqaystaa oo dhibaato fara badan iyo darbi jiif fara badan waa soo maray dhahday yaa laakiin xaalada adag waan ka gudbay tir hadda qof weyn ahay laakiin xanuunkaas miilooba ay tir sababtoo ah 12 jir aan liigeysay tiri Soomaa
wadan horumarsan oo ku noolahay ninka raban hadda xitri waa iska guursan karaa oo hadda qof ima dhahayso tiir la kufsado oo waaye laakiin gabadhan kale Soomaaliya joogto waa iska naqaana Soomaalideena dadka deegaanka waxa la dhahay tir magacaasa mar walba la dhahay tir gabadh la kufsaday labadii xitaa waxay tiri oonan idaheen erigaas oo xitir saasidaas agmar loo qof isku foorarto waxa u maleeyay aniga eriga ileeyihiin sababtoo qofta uqdada lagu beeray qof iska xanuunsan qofku markuu ku jiro xaaladaas oo kale waxa loo baahan yahay in la farxad galiyo wuxuu jecel yahay loo sameeyo dibka dhan laga ilaaliyo waayo qof niyada ka jabsan waa depression ahaayo so qofku markuu niyad ka jabsan yahay waxa la rabaa in waxa la rabaa oo aad loo caawiyo aad looga fikiro xaaladiisa si uu nafsadiisa qatar fara badan u wajihin marka anigana yaa Soomaali hadaan nahay dad iska wanaagsan way nagu jiraan dad xoogaa dadka moraalka ka dilsan xoogaa ku sii waxaan ku dhahay xanuunka ku sii cusbo u sii mari way jiraan oo sii huriya meeshana marka ka haaya laakiin waxaas lama baahna waxaasna way iska jiraan so markii qofka la qasbo kale ama xoog si xoog loogu falgalo ama si xoog ah waxa looga raadiyo waa kufsi وانا قال ما شرع دراه كوفسي waa sharci daro cid sharci ka dhigays ma jiro dunida oo sharci daro kiya qofka dambigaas geystana waa dambi weyn dunida xukun uu mara laakiin Soomaaliya maya wuxuu iska noqdaba mid sii kordhaba mid sii kordho oo iska noqdaba oo wax caadi ah laga dhigto oo bulshada ay la noolaan karaan adawna gabadhii waxa la leeyahay tii la kufsaday waa la ceebeynaya nimanka deegaanka xilin tii la kufsaday wax guursanaya malahan nolosheeda dhan dhulkay u dhamaatay ayada murug u dhamaatay wixii oo dhan aysan ku dhamaadeen qofkii dulmanaha oo la dulmiyay oo dambiga laga galay oo miskiinka ahaa lagu sii diganaya kii dambiilaha ayna magaalka sharcadu xiranaya gabar kale oo Soomaaliya oo walaasheen oo hadana dabinkaas u dhigaya qurbama bahaysabaasi soo taas waxay ku cadeynaysaa dumarka inaanan la siinin wax waxaan ku dhahay darajo ama qiimeyn ah ana number 1 la siin dunida ama dalalka hormaray wax walba dumarka ay ku tirsan yihiin dumarkan aad looga ixtiraama iskida kufsiye hadal xun daa tiraadid ganaaxa tahay faant ama waxira laga dareemo ama farayar u qaado wal wixira inta la dilo akaw laga siiyo wixii rabo la sameystaa xaaladda Soomaaliya East Africa dumarka xaalad adag ay wajahayaan dumarka ku nool East Africa Soomaaliya ma fahanteen mid kale oo iyadana waxa jirta gabar kale iyada iga sheeka xanuun badnayd sheekooyinku waa kala xanuun badan yihiin ama dhacdooyinku waa wax kala xanuun badan oo nahantii gabar kale iyadana taas ma ka sheekayn karo ma fahanteen soo kalibiska ugu sii dheeraanayo marka way dhacaan in loo geysto laakiin dadka laftirkooda xoolo inay yihiin ay aqli lahayn dadka geysanayo falalkaas gurracan ee arxan darrada qof aan rabin ku sameeynaya oo dambi ka galaya mid rabtuuba iska heli karaa ama mid oo u sharciyeysan oo soo heli karo oo awoodo oo gabar walaashiisa dulminaya taasna waa qalad waana sharci darro Soomaaliya hadii la dhahana waxa ka socoto East Africa qalad ayaa qalad lagu saxaa qiimihii noloshana waa la qasaarinaya ma fahanteen qalad ayaa qalad lagu saxaya qiimihii nolosha dumarkana aad baa loo qasaariyay aad baa loogu tuntay marka aad idin salaamaya soo dhawaada channelka subscribe saarta like saarta video si share gareeya comment qurux badan waxaan ku dhahay duco hala soo qoro abaayaha loo soo duceeyo abaayada murugta wajahaysa xaaladda adag ee ku nool East Africa ama Soomaaliya yaa dhulkii udgoonaay ee ku nooshahay waa Soomaaliya laakiin dib male waa laga bixi doonaa wax walba way iska hagaagi doonaa ani marka qof dhibaataysan oo kale ama qof wax xaalad adag wajahayso kale wax insha Allah waa la qeyraya qalbiga qeyr u sheeg waa laga bixi doonaa tan way dhamaan doontaa so hadaladaas oo kale u adeegsada sababta wax kale oo sheega ma aqaani sababta qofku walaalkii uu dhibaataysan yahay qofkii inuu ooynayo ooyin kale ku sii daro aniga iyo qofku walaalkii inaa qalbiga u dajiyo intaas baa awooda wax kale maanta ma awoodo soo walaalay cadaalad u baahan cadaalad inaa maanta cadaalad la kulmaan aniga ma awoodo walaalahayga aad ugu xumahay wax ku dhacay gabdhaheena quruxda badan ee ku nool East Africa ama Soomaaliya ama dhulkii udgoona aad ugu xumahay anyway waxaasna wax soo noqdo ayay noqdeen in loo geysto gabdhaheena
galma sharci darra aysan raali ka ahayn in lagula kaco fallidi ku ah nafsadooda ay jiritaankooda wiiqayso sababtoo jiritaanka qofka way wiiqma qofka marka depressionka noocaas oo kale ku dhaco niyad jab uu ku dhaco oo waxaas loo geysto dadkina way kugu caynayaan yaa waxaa lahay dadku waxay casirka kugu arkaan cishihii kugu caayaanaa la dhahay marka dhacdada dadka ku dhacdana maaha in lagu caayo ama lagu digto ama qofka depressionka haaya asiga in oo naxariis loo muujiyo la rabo in lasii damqeeyo maa nabarkiisa cusbada lasii mariyo walaalaheeyo yaa dhammaanteena ilaahayna wuxuu yidhi isku naxariista idin naxariiste marka naxariistuna waa loo baahan yahay dadka depression hay qof walba qof depression haysta aragtid oo niyad jab haysta walaalka caawi qalbiga u deji waxa ka saacideyn karto ka saacidey ma fahantay ani qof walaalkii waxaan ka saacideyn karo ma ka hagranay ma fahantay saasaa loo baahan yahay xaaladan xaalad adag waaye East Africa jirto dhulkii udgoonaa ama Soomaaliya runaantii wax ka qabtana ma ilaahay hadan laakiin dib ma lahan insha Allah arinku qayb buu ku dhamaan doonaa tanina waxay u okaanaysaa qof inuu qofna isku aaminin tan kale gabdhahan u sheegayaa da'da yar inaysan aaminin qof aysan aadin gurigiisa qofka hadduu jacayl dhaba ku qabo goobo lagu kulmaa jiro sida goobaha dalxiiska oo kale public waaye public location waxna kuguma sameyn karo qofkaas meel public waaye gurigiina ha kugu imaado okay labadaas hadduu waayo iska daa abaaya ku dhihi lahay ha u tegin waayo abaayadan waa aragtiin dhibaatada iyo murugta ay wajahaysa xaaladda adag nafsadeeda una soo duceeya ilaahay asiga faraj khayr qaba u furi doono ma fahantay sidiisana qofka mu'minkaana culays wuu dareemaa culays badan laakiin waxaa la cusri fudeeda ka dambeeyo insha Allah cid walba oo niyad jab ama depression dareemayso waxaa rajaynaa in ilaahay ka bixiyo ilaahayna waxay jecel yihiin ku faraxsiin inuu u guddoonsiiyo insha Allah dambiilayaashana inay cadaaladda maran ayaa rajeynayaa mustaqbalka dhow ama midka fogba ha ahaatee waan jeclaan lahaa cadaaladda maanta oo kale in lagu qaado laakiin wax suurtagal ah maaha ma wax dhici karo ama suurtagal maaha markaa kule dad fara badan arko dhibaato loo geystay oo ilaa haddana wax loo qabanaynin soo saas darteed ayaa u leeyahay waxaas wax suurtagal ah maahan dadka sinay cadaaladda maraan marka waana mahadsantihiin dhammaantiin muuqaalka iisii share gareeya la gareeya commentiyeya insha Allah commentiye ducaa soo qora gabdhahaas walaalayaa ama qaasatan gabdhaha East Africa ku nool gaar ahaan Soomaaliya oo aad xanuun xoog u dareemayso in ilaahay depressionkaas niyadeed ugu masaxo walow aysan masaxmaynbo sababtoo ah xanuunada way kala daran yihiin xanuunka markuu heer nafsadaada uu saameeyo uu gaaro depressionkaas oo kale ama falkaas oo kale lagu geysto way adagtahay sida ku ilooweysid gabadhii marka dhibaatadaas ku dhacday ragga dhibaato soo geysana subax markii la xiray isla subaxda kale inta la gar magaalada ay wareegayaan waxay ragga dhibaato ay geystay way hor imaanayaan wajiyadooda marka arko aniga dhan waxaan halis galahay tiri nafsadeeda ayaa halis galayso sababtoo ah ninkii dambiga ku geysta ka soo horbaxayo waxna kuma sameyn kartid soo dhibaato ma aha yaa oo baabri awood qabata malaha sama marka waxaas waa sharci daro marka hadda xaaladuna way kasii dareysaaba laakiin maxalla ilaah baa deeq baxshay ilaah dalaalaha keeno oo dumarka insha Allah dumarkana ragow dumarka waxooyaashii waa walaalihiina waa eedayaashii waa dhali doontii waa weydin dhaxdaa laftirkiina waa u dhaxi doontiin marka dumarka hala ixtiraam idilaahi ixtiraam muujiya insha Allah dhamaan rag wanaagsan way jiraan rag dhalinyarada Soomaaliyeed aad u fara badan yihiin laakiin soo waxa jira dad iska xunaa jiro oo magaciina raganimo idinkaga dheelaayo insha Allah idinkana iska qabta oo waxaan ku dhahay gabdhaha walaalihiin garab siiya oo raggaas xun inaa iska qabataan isku daya si magaciina oo horo iyo waxaan ku dhahay sharaftiisa sumcadiinaba oo meel sare u gaaro oo u ilaashataan sababtoo badda hal malaa ayaa qurmiyaal dhahay soo magaciina raganimada iyo sharaftiina rag xun ayaa idinkaga dheelaayo oo gabdhaha dhibaateenaayo oo wuxuush ah oo axmaq oo naxariis lahayn marka inaad iska qabatiin fiican loo mana baahna dadka oo dambiilaha dadka garabka siinaya ayagana oo jeelasha iyo maxkamadaha ka badbaadinayo oo wax walba uu deeqayo kulay ma aqaan dadka naxariista meel ka guurtay dadka qofkii maxkamadda loo wado oo waxa arkaysaa sharcigi markuu mari lahaa oo gabadhaasna ay heli lahayd cadaaladda
in gabadhaas garabkeeda laga baxaayo oo ninkaas wixii maxkamadda jooga iyo wixii kale oo dambi oogayaasha iyo wixii oo dhan waxaan ku dhahaaya iyo abuukaatayaasha lacag afka looga jabinaayo yaa wax kuu qabanaya waxaa la yidhi af wax cunoo xisho lacagay qaateen dadka way iska aamusayaan lacagaa aamusisa marka waxaasna looma baahno laakiin dhib male qofkii dembigaas galay iyo ninkii duugduugaba waa isku mid same way kole ilaahay qofur raxiim waa waxna kama qarsana fahanteen aadaan idiin salaamaya maraba videoga inuu igu sii dheeraado marka arrintan waa arrin aad ugu sii kordhaysa Soomaaliya marka kufsiga marka heel dumarkeen wax u heeliyo way laayihiin oo dhaxdu u xirto laakiin insha Allah dheeraatay dhawaatay ama hadheeraata ama hadhawaato insha Allah cadaalada dumarkeen way helayaan iyo sida ay jecel yihiin iyo sida ay jecel yihiin oo noolaadaan aad idiin salaamaya waan kaga mahad celinayaa sida channelkay ugu xiran tihiin subscribe igu siisaan like iyo share iyo comment waad ku mahadsantiin walaalahaygan soo dhawaadaan ilaahay meel walba dunida feeda ku joogtaan insha Allah inta ku kulmi doono video xiga next video insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh